والله ما أنت ومالنا مروجة no murugo madow ay ii tahay ani maanta horta as qof oo hooyo ah waxa aan la yaabay oo niyadeyda ii geli weyday sheekadan oo tiktok wareegayso guys waxay ku bilaabantay sheekadan waan fiirsanayay sheekada cabaar ma soo gelinin hore cabaaran fiirsanayay cabaaray ku qaadatay ilmo yar oo 8 sano jir ah sidee ayaa iigu dhihi kartaa nin 50 jir ah ayuu u guursan karaa gabar yar 8 jir ah aaba muu ahayn miya weligii dadka damiirka iyo dhiigga xaguu aaday guys damiirka iyo dhiigga xaguu aaday ilmo yar oo 8 jir ah lagu guursanayo oo lagu leeyahay ilmihii yaraa 6 bilood ayuu sheekada waxa ku bilaabantay 6 bilood ayuu la maqnaa gabadhan 7 bilood ayuu la maqnaa waa la helay gabadhii markii dambe waa la waayay la ula baxsaday gabadha waa la helay haddana waa laga goyn la yahayo wuxuu ku leeyahay naagteedaba waa naagtaada say u tahay ilmo yar oo 8 jir say ku noqon kartaa naagtaada diintee dhihi karto 8 jir gabadhaadi waa naagtaadi waa waad ku haysan kartaa hadduu yahay aabbo oo bixiyeyna waxa way there's no way uu aabbo u bixin karo let me take that back there's no way uu aabbo u bixin karo gabadh oo 8 sano jirto oo uu nin weyn oo 50 jir uu siin karo oo uu guri ula geli karo heer laga gaaro gabadhi inay dhaqaaqi weydo qaarka dambeba waxa gabadh yar oo miskiin oo maxay tole ay la ciqaabayo waayade kufsi aan dhihi karaa ilmo yar oo kufsi ah lagu sameynayay oo intaasoo bilood lagu haystay guri oo dhaqaaqi la oo qaarka dambe dhan uu dhintay weeyaan war damiir ilaahay aan siiyay damiirka ku siinaya ilmo yar oo 8 jir ayaan guursan karaa maxay tahay daandaannimadaada haddaad kuwii waaweynaa oo guursan kari weyday gabadh kula eg ama kaa weyn aad guursan kari weyday ama adiga da'daada ku dhow aad guursan kari weyday oo aad ilmo yar oo waxba garanaynin oo hadda iyo soo baxay oo inuu tooyadiisa la ciyaarayo iyo ciidiisa uu guryo ka dhisto iyo waxaas maxay tale ku jiro aad maxay tale niyadaada ku siisay inaad aadid oo naag aad ka dhigatid naag ma ku noqonayso walaaltaas okay Soomaaliya tan waxa weeyaan tii oo lagu kala dhimanayo weeyaan tan waxa weeyaan waxa wadankan uu degi laayahay weeyaan ilaahan idinku daariyeen ninkan xaq hala saaro maxkamadda hala saaro there is no way oo diin ay ugu hayso ilmaha yar inuu koro oo heer ay gaadho paralyze uu ka dhigo gabadhi qaarkeedii dambe okay and then sheekadan midaaba ka dambeysaba lagu oo sheekada hore 8 sano oo lagu sheegay been waay aabaheeda gabadha bixiyay oo 12 ay jirtay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم okay let's say تنا بس حبتي كل وابا بيمبو do you really think إني صح تحي قبل هذه أولبية تمنشر عدني كدرتي أو محاطة do you really think إني صح سنتاي you think إني you fixing something do you really think had أبحث إنه سوق بتوع المحكمة الصاروا there is no way aabbo oo adduunyadan ku nool oo gabadhiisa yar oo 8 jir ama 12 jir uu u siinayo nin oo guri ugu gelinayo oo gabadhiisa paralyze ku noqonayso there is no way walaalo run ma la isku sheegay mise been la isku sheegaya Soomaali Maxamed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waryaarahan haddaa rabtiin xaqa ina ogaatiin waxaan maaragtay iska soo qaarkood waxaan arkay dadka oo dhahayo oo nabigii wuxuu ku guursaday Aisha 9 jir no 9 jir waa loogu meheriyay wuu korinayay naad inuu la aqal galay so nabiga iyo diinta ka saara meesha okay toqonimadiina ka saara waxaas it's not true okay laakiin wallahi I am so shame on my people wallahi ben ku sheegay wallahi aqliga maskaxda ku jirto dadkayga waa waxaan la yaabay waa waxa wadankan uu kicilayahay oo uu meel u laayahay oo uu u gubanayo oo uu degilayahay waay sheeko cusub aba noo imaadaba 2025 wallahi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ninkaas la soo xiro Soomaali Maxamed okay wax kale aan sheeg ma garanay ninkaas la soo xiro aabihi haduu bixiyay asagana la soo xiro I don't care aabihi la soo xiro ninka la soo xiro kulligood la soo xiro sheeko oo caadi ah maba habatan wax loo dul qaadan karo ma jirto
khayr aan idin rajeeyay bye